waa tallaabo kale oo runtii wanaagsan oo hore loo qaaday in aan maanta aan dhagax dhigayno warshadii burka Soomaaliyeed oo muddo dheer kadib maanta lagu guuleystay in la dhagax dhigo waanu mahadcelinaynaa wasaaradda oo runtii aad isugu hawshay iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee maal gashanaysa intaba inaan wax soo saarano oo aan warshadaheennii dib u kicino oo ay shaqooyinka ay qaban jireen oo waliba si casriyaysan ay qabtaan waa tallaabo wanaagsan oo dhaqaalaha dalka iyo isku filaanshaha dhaqaale ee istiraatiijiga noo ah wax ka qabanaya waay marka way mahadsan yihiin maalgashadayaashu wasaaradduna aad iyo aad bay u mahadsan tahay soo dhaweynta ay soo dhaweynayso dadka Soomaaliyeed ee maalgashanaya dhulkooda wax weyn bay ka bedeli doontaa haddii Ilaahay yiraahdo baahida aan qabno ayadoo oo aan ognahay inta aan soo dhoofsano iyo lacagta adag ee inaga baxda bur inaan gudaheena ka soo saarano waxay keeni doontaa haddii Ilaahay yiraahdo horumar wanaagsan oo dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii bulshadaba ah ayay keeni doontaa Ilaahay idinkiis waxaan kaliya oo rabaa inaan ugu baaqo dadka Soomaaliyeed dawladdeennii dib bay u soo noqotay nolosheenii dib bay u soo laabanaysaa si tartiib ah marka si ay adeegyadii loogu talagalay ee loogu qabto waxaan dadka Soomaaliyeed mar kale ugu baaqayaa inay dhammaan xarumihii dawladda ka baxaan u baneeyaan oo ay fursad siiyaan in shaqooyinkii loogu talagalay ay qabtaan xarumahaas inay adeegii guud ee dadka loogu adeegayay in loogu adeego inay awood u siiyaan jaanis hay'adihii mas'uulka ka ahaa in ay horumariyaan xarumahaas oo adeegii loogu talagalay ay u diyaariyaan intaasaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed waan ogahay duruufaheena jira laakiin haddana maadaama aan dawladnimadeennii ay dib u soo noolaatay waa laga maarmaan in ay hesho dawladdu xarumaha ay ku shaqayso gaar ahaan xarumihii ay hore u lahayd dawladdu dhulkeedii inay hesho hay'aduhu inay helaan waa laga maarmaan marka dadkeena ha u diyaar garoobaan tan hadda waa tallaabooyin kala xigi doona insha Allah ayaa xigi doona waxaan rajaynaynaa in aan samayn doono area warshado loogu talagalay oo ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah ay insha Allah ay degi doonaan oo la dejin doono oo area warshado kaliya loogu talagalay oo industrial area in la sameeyo oo ka dhex baxsan deegaanka dadku degan yihiin haddii Ilaahay yiraahdo waa fikirkaasi waa nagu jiraa waan rajaynaynaa waqti dhow inuu hirgali doono haddii Ilaahay yiraahdo marka waan soo dhaweynayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada aan Soomaali ahaynba inay wadankan ay maal gashadaan waan soo dhaweynaynaa